munaasabadan ay ku qalin jebinayeen in ka badan 40 arday oo dhamaysatay maadooyinka computer science ee accountiga kana baxday maxadka Moi Institute of Technology ayaa waxa lagu qabtay xaafadda Islii magaalada Nairobi waxaana ka soo qayb galay munaasabadaasi xildhibaanka deegaanka Kamankunji Yusuf Xasan Cabdi macallimiin waalidiin ardayda wax ka barata maxadkaasi iyo marti sharaf kale goobta lagu casuumay ugu horeyn waxa munaasabada ka hadlay maamulaha maxadkaasi Maxamed Aadan oo ardayda qalin jebinayay ku dhiirigeliyay inaanay halkaasi kaga hadhin waxbarashada ay sii wataan waxa sidoo kale halkaas ka hadlay qaar kamid ah ardayda qalin jebinaysay dabcan markii graduation ka noocan kale ku dhamaado micnaheedu ma aha inaad qalin jebisay sida anaga waxaan iraanaa qalin la jebinay ma jira qalinka uu soconaya ma fahanti khadda gadaal ugu shaqeysaa insha Allah marka waa inaad jaamacadaha siyaadaan walaalayaal saa u socotaanba waa xafladii afraad taamcineedu marka waxay tahay waxaan jirsanay 4 sano in fact 5 sano hadda taxayran uga dhiman marka intaas aan jirnay waxaan mar walba ku soo dareynay barnaamijyo cusub oo aan ugu talagalnay community-geena xaafadan degan Islii iyo mataqaanaa iyo meel kaleba sanadkan waxa farxad noo ah inaan soo kordhinay qaybta high school-ka haduu Ilaahay yiraahdo taasoo aan rabno inaan mataqaanaa aan ku bixino shahaadooyinka IGCSE iyo KCSE kulli aan ku bixino haduu Ilaahay yiraahdo. In all seriousness, today is a milestone of each of us and our families, and it is our beloved loved ones that we owe our deepest thanks. After today, we leave the protection of the college, the community, of our teachers. Dear teachers, thanks for making us to learn. Thanks for not making us to learn the way you wanted to teach. xildhibaanka deegaanka Kamankunji Yusuf Xasan Cabdi halkaas ka hadlay ayaa wuxuu hambalyeeyay ardayda qalin jebinaysay waxa sidoo kale halkaas ka hadlay qaar kamid ah mas'uuliyiinta lagu casuumay xafladaasi waxaan leeyahay guriyo hawsha fiican aad soo qabateen inaad ku guuleysateen waxbarashadiina oo aad soo dhamaysteen qaybihii ugu dambeeyay ee aad ka gasheen institute-ka Moi la yiraahdo runtina aqoontu waa qalabka ama se hubka ugu qiimo badan oo qofku ku siin karo ama se adigu aad gacantaada ku qaadan karto gabdhaha waxa bartaan gabdhaha wax barteen gabdhaha kale u sheega waxa bartaan maati iyo diiniba gabadha markay wax barato kaalin weyn bay gali dawlad kasta tagta Mareykan hada u istaagtid waad helaysaa because dad aad u fiican baan nahay dabeecada kale oo maaska yaraxuna ma ogi taaxun baa yaraqabnaa moori laakiin bulshada kale waa ka fiican inta adduunka ku faaftay ugu dambeyntii waxa shahaadooyin la gudoonsiiyay ardaydii qalin jebinaysay Cabdirashiid Obsiye Home Cable TV Nairobi.